الله الرحمن الرحيم. أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دعوة قيمه بدن كحرا أبيكتيج فضلا channelka arukuma oo subscribe saaro sidaas la mid ah muuqaalada aan channelka soo gelinay mid ka kashay inuu la garay sidaas la mid ah asxaabtada la sii wadaag maanta muuqaalkeena maxaa idinku haya maxaa ku cusub maxaa ka filaysiin maanta muuqaalkeena sida ciwaanka sare ah ku soo aragtay Facebook account has been locked oo laga xiray waayo Soomaali maxamed meel walba dunida iyo dacaladeeda ay joogaan adduunweynaha ayaa ku soo baahatay arintaas Facebook has been locked ka ciladaas xalintiisa waa lagu wareersan yahay barnaamijyo badan la keenaa wax badan sida hadda aragtay channelka muuqaalo badan oo asiga ka hadlay ayaa jiro muuqaaladaas dad badan ayuu caawiyay suma wallahi oo billahi oo tallah ana ku caawiyay oo dad badan ayaa akoonadooda u soo celiyay hadda been u maleynayeen akoonada qaar oo maaragtay aan furay meesha kaaga muuqato waa barooben kartaa waa tijaabin kartaa waayo Soomaali waxay taqaanaa inta soo itaabsi dadka qaar waxay ku dhahayaan waxan beenaalo waaye Soomaali waxas ma jiro oo waayo sababtoo ah hadduu aad stepkaas ku shaqeey waaye qof walaalkaaga uu shaqeeyay stepka ma xarajeena inuu ku shaqeeyo hadduu ku shaqeeyo haniye jabin wiligaaga never give up marnaba ha isdhiibin oo aan jabin akoonkaaga soo ceshan kartaa insha Allah muuqaalka faahfaahsan isla bilaabno ugu horeyn horta waxaa tagi doontaa application ay Google Chrome ama ay browser oo markaas adeeg kugu jiro kadib waxaa tagi doontaa qaybta sare waxaa ku qori doontaa facebook.com kadibna go ayaa dhigi doontaa go marka adiga login iyo xalaas ku soo saarayaan akoonkan waa keenaa sida halkan kaaga muuqato akoonkan gabadha walaashina iskale iyo akoon has been locked la dhahay akoonkan waxaa la xiray September 13keeda 2022 insha Allah waxaa ku weynahay inaan soo celiyo akoonkan markaan soo celiyay waa isla arki doona insha Allah waana in soo basti garan doona insha Allah dua la yiraahdo aan gudagalno muuqaalkeena qaabka markuu yahay get start ayaa ku dhufan doona next ayaan dhigi doona next marka dhaho option kan ayaa taagan confirm our identity in maaragta aqoonsi national ID card ama license defense iyo passport ayaa laga baahan yahay option kan ayaa taagan option kan waxa rabnaa inaan ka gudubno hadduu alla yiraahdo option kan saa ugu gudbi karnaa marka waxa tagi doontaa home marka tagtid qaybtan ayaa waxa ku qori doontaa Facebook qaybtan hadda sidan ay kugu qoran tahay haddii halkan aan ku calaameeyo Facebook meeshan ay ku qoran tahay Facebook help center email ayaan ku dhufan doonaa marka sidan ugu dhufto kadib waxa qaybtan sare oo ku qoran tahay email Facebook help center linki ugu hore ayaa ku dhufan doontaa sida marka ugu dhufatid wax ku soo baxay saddexdaas dhibcood ayaa tagi doontaa kadib ayuu wax ku soo saari doonaa kadib waxa ku xiran doontaa optionka ugu horeeyo ay ku qoran tahay using Facebook marka ku dhufatid hoos ayaa u tagi doontaa qaybtan ay ku qoran tahay haddaan ku calaameeyo Facebook mobile apps ayaa ku sii dhufan doontaa Facebook mobile apps okay marka sidaan ugu dulufto ay iPhone ma isticmaasha iPad ma isticmaasha Facebook Lite app ma isticmaasha Android app ani hadda option kan ayaa muhiim ah option kaas ayaan ka dooran doonaa Android app hadii Android isticmaasha hadii iPhone isticmaasha optionada kale ayaa muhiim ku ah kadibna intaan qoraaladan dhan waa akhriga doontaa adiga hadda u baahan tahay ani hadda option kan u baahanahay oo ku qoran tahay privacy ayaa ku dhufan doonaa privacy marka sidaan ugu dhufto sida halkan kaaga muuqato sidaan ayuu ku soo qaban doonaa sidaan wuxuu kugu soo qabanaya waxay tahay hadda fiiri aan ku tusiyo refresh hadaan dhaho dib ayuu wuxuu noogu celinaa akoonkan ayaa ka saari doonaa akoonkan marka ka saarno log out aan dhahno stepidii hadda amartay ayaa dib ugu laaban doontaa okay option kan ay isla mareynay privacy aan ka xulanayni
privacygaas ayaa ku dhufan doontaa. Privacy markaa ku dhufatid qaab caynkan oo kale ayuu u wareegi doonaa. Second yar uu qaadanayo wuu soo kacay. Hoos ayaa u bixi doontaa. adiga qoraaladan muhiim waaye inaad akhrisatid oo maaragtay waxyaalo badan aad ka korodhsatid, waxyaalahay u baahan yihiin inaad ogaatid waa ku muhiim. marka ani hadda hoos qaybtan hoose oo u dambeysa qaybtan halkan aan ku calaameeyo contact us kaas qaybtaas ayaa muhiim noo ah. contact us online meel ay ku qoran tahay ayaa ku dhufan doontaa. online kaas markaa ku dhufatid option ayuu ku soo saari doonaa cilada meesha ka ah Facebook, Messenger, Instagram, Facebook. marka optionada ayuu ku soo qaban doonaa. hadda ana option kan ay ku qoran tahay meeshan hadda ku calaameeyo how do I contact Meta with equation. qaybtaas ayaa ku dhufan doonaa. waxaa kasii xulan doonaa qaybta optionkan u dambeeyo. optionkan u dambeeyo ayaa ku dhufan doonaa. markaa ku dhufto qaybtan ay qoran tahay I still have equation about the privacy ayaa kusii dul dhufan doonaa. markaa ku dhufto waxaa meeshan ka doonaa country residents, wadanka markaas aad joogtid. ana hadda waxaa wadankeena waa Soomaaliya. qof Soomaaliya aan ku caawin doonaa. Soomaaliya joognaa. Soomaaliya wadankeena nabad allah u keeno. Soomaaliya ayaan ku xulan doonaa. first name ayuu dhahayaa. okay horta ugu horeyn gmailka ii koobiyeysan. gmailka ayaan ku dhufan doonaa. kadibna first name aniya aniya intan waxaa last surname aliwa magaca dambe namananesta. kadib waxaa dhihi doontaa qaybtan ay ku qoran tahay sendi waa diri doontaa insha Allah binilahi kariim. kadib waxaa leeyahay sendi. optionkan hadda waa ujeedaa wuxuu ii soo qabanayaa xarfahan inaa gelgeliyo. meeshan waxaa waaye B capital ah, Y capital ah, V oo small ah, R oo capital ah, B for Ben oo capital ah, Q oo small ah. submit ayaan dhihi doonaa. marka submit markaan dhaho haddii aan xarfaha saxay wuu dirsamayaa. okay qaybtan wuu diray. isla optionkan anuu joogo qaybtan homeka ayaa imaan doonaa. qaybtan ay ku qoran tahay Facebook feedback oo ku qori doonaa. okay Facebook feedback markaa sidaan ugu qoro optionkan ugu horeeya ayaa ku xulan doonaa. optionkan markaa ku dhufto wuxuu dhahayaa gmailka ay geli. okay gmailkan oo ii koobiyeysan yahay. okay waan geliyey. okay inta wuxuu dhahay select products. productii ku haysta muxuu yahay other dooro ma ku jiro akoonkaaga. kadib inta waxaa gelin doonaa codsi aan soo diyaariyey. codsigaasni haddaa isla tagno. okay soo soco. okay waa kina codsigan waxaa lagaga baahan yahay regardiskan aniya cali nameka iyo contactiska email iyo phone number iyo waxyaalahaas ku dareysaa. ana hadda waxaan waa ii diyaarsan yahay. adna waxaan kusoo dhigi doonaa linka descriptionka hadduu alla yiraahdo ama commentiga ayaa minka ugu qaban doonaa. haddaa ilaawa aadana ayaan iska ahay waan iloobi karaa. fadlan ila soo wadaag idheh ustaadii waa soo ilowday oo biin kusoo qabo insha Allah sida asxaabtii hore aan ku aqoon jiray. marka waxaa leeyahay qaybtan ay ku qoran tahay sendi ayaa u diri doonaa insha Allah 24 hours aan isku soo laaban doonaa. daawadaha qiimi badan waxaan balan iskaga qaadnay akoonkaas qaabka optionka loogu bedelo inaa idin tusiyo. hadda optionkii inay bedelay in kale ayaan fiirinaynaa oo waakina akoonkan gabadheena walaasheena ee leedahay waa aniya cali. akoonkeeda sida halkan kaaga muuqato waa la xiray. aniya waaye your account has been locked. waakina September 13keeda la xiray 2022. marka caawa inaan ka farxiyaa rabaa hadduu alla yiraahdo. optionkii waa ku guuleysanay. muuqaalka bilaawgiisa haddaa tartiib u fiirsatid akoonkaaga si fiican u soo ceshan doontaa. anaana ku ballan qaadaa midaas waa hadduu gmail uu kugu xiran yahay. hadda gabadhan identity ayuuna weydiinayay haddii aad muuqaalka soo fiirsatay. marka maalmo ayaan sugnay oo hal maalin iyo 2 maalin ma ahan maalmo badan ayay qaadatay. marka hadda code ayaa gmailkeeda lagu diri doonaa. waxaan dhihi doonaa get a code gmailkeeda waakina. kadib waxaan leenahay get code si hadduu alla yiraahdo codekan ayaa lagu diri doonaa. mar in yar intaan koodka weydiinayo ali sugo insha Allah. sida halkan kaaga muuqato koodku waa ii soo dirtay waan geliyay. kadibna submit ayaan dhihi doonaa.
submit markaa dhaho maasha allah akoonka sidaa ujeedid next step ayuu u gudbay to unlock your account akoonka waa unlock gareeyay sidaas lamid ah step 2 soo gudbay you will be unlocked ayuu hadda marayaa insha allah next ayaan dhihi doonaa intaas lambar ugu xiran maasha allah next ayaan dhihi doonaa haduu la yiraahdo halkan ayaan soo gaarnay wuxuu dhahayaa anyway remove it don't not remove waxana ka remove garay marabo marka password ayaan ka bedeli doonaa insha allah sida halkan kaaga muuqato akoonka passwordkiisa waa soo bedelay sida halkaas kaaga muuqato akoonkan hadda dib ayuu u kacayaa laba option ku soo saar review recent activity iyo back to the facebook ayaan ku dhufan doonaa back to the facebook markaan ku dhufto sida hadda halkan u jeedid facebookeeda wuu furmay wuu shaqeynayaa marka haddii aad muuqaalkan ku soo gaaray aad daawatay adigoo caafimaad qabo fadlan waxaa ku leeyahay channelka wuxuu ku taagan yahay wadadii uu ku tagi lahaa 6,000 oo subscribe ah maasha allah siduu u socdo waan ku farxaa dhaqdhaqaaqiisa marka arko aadaan ugu faraxsanahay marka dhammaantiina waxaan idin leeyahay sida ay muujinaysiin aad garabkayga u taagantiin ayaan jeclahay waqti walba inaan garabkiina u istaago qof waliba oo walaal ah oo iga soo codsado inaan u soo sameeyo hadduu facebookiisa gmail uu ku xiran yahay hadduu alla yiraahdo marka waxaa ku leeyahay tan intaan kulmi doono muuqaal caynkan oo kale ah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu see you another next video insha allah gabagabadii gunaanadkii haddii aad channelkan ku cusub tahay maxaa ka qabtaa hadda inaad nagu soo biirtid aad channelka subscribe saaratid sidaas lamid ah asxaabtaadana muuqaalkan aad u sii sheergaraysid haddii ay tahay waa ku qanacsana waxba kama qabo fadlan soo dhawow waxaa ku soo dhaweynayo macalinka weyn Abeka Teach insha allah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu see you another next video insha allah goodbye